Bannaanbaxyo waaweyn ayaa gilgilay dalka Turkiga xalay ilaa iyo saaka kuwaas oo looga soo horjeedo madaxweynaha haatan talada haya ee Rajab Tayyip Erdogan. Ilaa iyo 81 gobol oo ka tirsan dalkaasi Turkiga ayaa gabi ahaanba waxa ay dadweynaha dalkaasi Turkiga iskugu soo baxeen bannaanbaxyo waaweyn iyagoo gilgilay iyadoo ugu horeysa magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Turkiga ee Istanbul. Bannaanbaxayaasha ayaa inta badan ka careysan xarig loo geystay hogaamiyaha mucaaradka ah sidoo kalena loolan kula jiray madaxweynaha haatan talada haya ee Rajab Tayyip Erdogan. Hogaamiyaha mucaaradka sidoo kalena tartan kula jiray madaxweynaha dalkaasi Turkiga isagoo kaga guuleystay doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Turkiga ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoo la xiriirinayo musuqmaasuq. sidoo kale duqa magaalada Istanbul ayay u soo doorteen xisbigaasi mucaaradka in mar kale uu bedelo ama booskaasi uu tago hogaamiyaha mucaaradka iyadoo bannaanbaxyo waaweyn ay dalkaasi Turkiga ay gilgiliyaan. Turkiga ayaa ku jiray xaalad nabdoon sidoo kalena ahaa dal aad u nabdoon marka loo eego xaaladda gobolka uu ku jiro dalkaasi Turkiga isagoo dalka Turkiga la deris ah dalka Suuriya. Turkiga ayaa inta badan gacan weyn waxa uu ka geystay dagaalkii Azerbaijan iyo sidoo kale Armenia isagoo sidoo kale gacan weyn oo muuqata ka geystay godoomintii ay khaliijka Carabta kala kulmay dalka Qatar oo gacan weyn ka sii kana guuleystay ugu dambeyntii. Turkiga ayaa inta badan dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyaan inuu gacan weyn siiyo Iran iyo sidoo kale dalalka inta badan aysan jeclayn ama siyaasadooda isku furfurneen. Si kastaba ha ahaatee madaxweynaha shacbiyada ugu badan sanadadii la soo dhaafay dalka Turkiga heystay ayaa haatan u muuqda mid wajahaya culeysyo haddii ay bannaanbaxyadan sidani ku sii socdaan oo dalka Turkiga uu gali doono xaalad ka duwan Turkiga sidii lagu yaqiin.